waxyaabaha hadda soo kordhayaab kale waxaa ka mid ah dumarku markay aroosyada isugu yimaadaan dharka waa la dhiganayaa markaasaa wixii aan la ogolayn xitaa dumarka markuu la joogo intee baa la ogolyahay inay iska arkaan horta ma is weydiisay waxaa la ogolyahay luquntaadaas marka habla dumar aad la joogtid adna aad dumar tahay dee luquntaada inay arki karaan iyo wejigaaga iyo dhagahaaga gacmahaaga wixii cududaha ka hooseeya lugahaaga wixii kubka ka hooseeya inay arki karaan laakiin haddii goonooyin iyo laysula baxo garamo haddii laysula baxo diricyo khafiifa oo qoftii hooyada ahayd ama gabadhii kale ee iminka gashaantida ahayd diric khafiifa oo maxaan ku yiraahdaa laabteedii iyo caloosheedii muuqanayso intay garbasaarka dhexda ku xidhato isruxaysa waxa inta ka sii daran kaamirada iska duubayaan markaasaa la soo dhigayaa meelaha bulshada ku xidhiidho waxa ka sii daran rag baa loo yeerayaa la leeyahay xafladda arooska noo duub iyagoo tima qaawan iyagoo diricyo khafiifa xidhan iyagoo wada jaasayo isruxaya mushkiladaas waxa inta ka sii cajiib badan labadii isguursadaa meesha la keenaya markaasaa toorka meesha la keeno ee xalwadan iyo waxaan macaani meesha lagu cunayo dadkiiyo meesha jooga sida gaaladu isticmaasho ayaa la leeyahay adna soo go iyaduna ha soo goyso markaasaa la leeyahay afka ha la isu geliyo ninku xaaskiisa inuu cuntada afka u geliyo waa wax sharci ah laakiin de in la xumeeyo lama rabo xataa rasuulku sacad muxuu ku yidhi imaam abi waqaas xataa maa tajcalu fii fiyi imra'atika sadaqa حتى حاسكاga afka waxaad u geliso waa sadaqad buu nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin meesha bulshadii oo dhan ay fadhido oo sadoho ay fadhido oo dumaashi fadhido oo xigaalkii iyo xididkiiba fadhiyaan oo maddi tuban tahay ayaa xishood liidaada iyaduna ka indha adag tahay adnaad ka sii indha adag tahay inta wixii la qaado ayaa afka la isu gelinaya markaasaa waxaa leedahay arooska sidaa la yeelin farxadna male arooska mana barakaysna sida gaaladu samayso way gaaladu afkay isu geliyaan ninkuna afku u gelinaya gabadhna afkay u gelinaysa kadibna iyaga afka iska jaqaya gaaladu kuwa Soomaaliya oo sameynaya indhahaygaasaan ku arkay anigu oo wasaa'il islaamka la soo dhigay in xaaskiisa yeelay hadda waxay ka gudbeen sida gaaladu samayso qaabkeeda waxa kamid ah gacantii baa saa la isu dhaafinaya gabadha gacanteedina waa tan gacantiisina waa tan labadii gacmood oo la marmarooriyay oo saa isu dhaafsan ayay afka saa isu gelinayaan waa qaab cusub markaas intii meesha joogtay alla ka cabsada miyay leeyihiin war ma xishooday leeyihiin war sidan dhaqankeennii ma ah miyay leeyihiin maya waa loo sabcinaya saabka loo garaacay meeshii la orna waa alla ka cabsada war xishooda war sidan dhaqankeennii ma ah war islaamku saan ma ogola war goorma sidan loo ba'ay intii la oran lahaa sacabka iyo foorida iyo fiiqfiiqda meesha ka dhacaysay alalaaska wad yaabaysa heerka saa ku askumay goormu ilmo khayr qaba iska dhalaya markii hore reerka la waalayba hadii dee la waalay maxaa ka soo baxay wax waalan ba ka soo baxay xawaalama meesha ka imanay sida awgeed xafladaha iminkii waa sii kordheen jaamicaadka iskuulaadka macaahida waxa la qabanayo runtii wax badan oo sharciga khaldan baa ku jira oo gabdhihii iyo wiilashii oo xaggan xafladaha hoose aroosyada ku soo ilbaxay ayaa xaggan isla soo galay hadhow marka xafladu dhamaato baa sawir la isula dhaqaaqaya wiilashii gabdhihii saa isku ah oo isa sawiraya oo saa isugu waxaysan waxaas anigu waxaan oran lahaa xafladahan jaamacadaha iyo macadiyada iyo iskuulada loo dhigayo hala daayo shareecadu waxay qabtaa qawaacideeda waxa kamid ah wax la yiraahdo saddu dhariica ba kamid ah in la is hortaago waxa qofka wax un gaarsiin karayo arintii dhaqaale burbur bay keentay hanti aad u fara badan ayaa xafladan marka la qabanayo ku baxaysa haba kala badnaato hantidu dugsiyada sare iyo jaamicaadku ugu hanti badnaadeen hanti badan baa ku baxaysa dad badan oo baahan oo buka oo goblan ah ayaa jira oo u baahan hantida in la siiyo $5,000 maxaa ka faa'iido xafladan hadda lagu bixinay maxaa ka faa'iido meesha quraan lagu ma dhameeynin $5,000 baa lagu bixinaya $5,000 intee gablana intee tiibay qabta intee baahan intee bukta baa u baahan in lagu caawin karayo ummad masaakiin aynu nahay ummad baahan baynu nahay ummad waxaynu nahay dawlad la'aani baaba'satay baynu nahay ummad aad u jilicsan baynu nahay tacaawun badan baynu baahan waxa ka soo baxaya oo kale
gabdhihii oo wejigii wada make-up wada marsaday oo mid waliba wejigeedii weji aan ahayn sii saaran yahay oo meeshii isugu imanaya oo waxaan ku idhahdaa maryo aan la garanayn iyo kharash iyo hanti badan meeshii lagu gelayo waxaa ka soo baxay nooc beratan ah oo la leeyahay iskuulkaasi waa dhigay jaamacaddaasi waa dhigtay macadkaasi waa dhigto ka lali oo ka badi adna hadde sida kale u dhig hadduu 2 u yeedhay weriye 4 u yeedh hadduu u yeedhay ciddaa adna intaa u yeedh hadduu intaa casuumay in ka badan casuul si hadhow loo helo waa nooc marketina ama taswiiq ah suuq geyn la helo oo dad badan meeshii hadhow wax badan ka yimaadaan waxa ka mid ikhlaaskii baa yaraaday iyo daacadnimadii wixii ka yaraaday waxyaalo badan rasuulku bal u fiirso diinta caaisha maalin la sheekaystay wuxuu yiri caaisho kacbadan aad arkayso sidii nabiyullaahi ibraahim uu u dhisay uma dhisna sidii inaan ku celiyana waan heli karaa way isku dhisnayd iminka kacbadu iskuma dhisna inna waa ta dhisan inna dayr yar baa saa u soo wareegsanoo xijru ismaaciil baa la yidhaahdaa intaa saa u soo wareegsanay kacbaday ka mid tahay inaan intaan dumiyo gebigeedaba hal qol ka soo wada dhigo intanna ku soo xidho waan yeeli karayaa laakiin waxaan isaga dhaafay buu yidhi walowlaa xadiidu cahdin biqowmiki qoladaadu hadda soo muslimtay oo dee dadkan carbeed hadda soo muslimay oo war kale keeni karo waxa weeyaan haddii alla idmaayo maxaan ku idhaahdaa kacbadii waa la dumiyey iyo war kale keeni kara anigu waxaan odhan lahaa dad macaahidda iyo jaamicaadka qaarkood markay dhigayaan dad aan waxaasi ku jirin oo wanaag iyo daacadnimo iyo khayr iyo horumarka bulshada iyo wixii la qabtay ummadda in la tuso uga gollena waa jiraan waa ka mid waidaa qultum facdiluu baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala laakiin hadday bahashii halkaa ina marinayso waxaa fiican bal inaynu bahashii bal miidiyaha iyo waxaa ka dayno oo yaro khafiifinno oo bal sidii hore ku soo yaro celinaa fiican wax badan oo buunbuuninta intaynu ka dayno ayaa aniga ila fiican taladayda bir kuma goyn laakiin waa taladayda aniga saasaan odhan lahaa waxyaabaha aynu tilmaamayno axibatii fillaah waxaa ka mid ah mas-uuliyadda waalidku way naga jilicsan tahay sidaa awgeed baa dayac fara badan baad bulshada ka yimid dayac fara badan baa yimid awlaadan sharci ahayn baa dhalanaysa waa la isu haystaa intaa garteedii iyo mashaakilkeedii baa laga bixilaayahay intaa waxaa soconaya waxyaabo fasaadoo badan waalidku mas-uuliyaddiisa ha guto kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati kulligiin xil baa idin saaran xilka idin saaran qof walba waa la weydiinayaa buu nebigu yuri sal alla alay slam yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara mu'miniintii baa lala hadlayaayo war xilka idin saaran guta oo naftiina iyo ehelkiina naar ka badbaadiya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala gabadhu markay suuqa u soo baxdo waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mid ah ay gabadhu suuqa u soo baxdo waxaad arkaysaa iyadoo kii baabuurka ay soo kiraysatay la kaftamaysa oo la qoslaysa oo isagiina aan waabanayn ile waxa weeyaan nin arkay cidaan iska dhicinayn oo hadalka la wadwada waa wadwadayaa isagiina dukaankii hadday soo gasho waa saas dukaamadii iyo subermarketadii la furay iyo baqaalaadkii baa la soo gelaya iyagoo hablihii yareeraa qaarkood aan wax iibsanayn ayaa maanta dhan wax la baayacaya kaasay soo tus meeqa weeye kaas muxuu ahaa kansaan weeye maanta dhan waxba gadan maayaan laakiin waxaa la iska rabaa in la baaqbaaqo wiilasha meesha in la dhex marmaro in wakti lagu lumiyo waxaasaa la rabaa ma ujeedaa waa wax khalada oo iyadoonaan shareecada sax ku ahayn kii dawaarka iyadoo heli karta gabadh marada u jarta bay nin u tegaysaa ninkiina alla mid ka cabsanaya xishoonaya ma aha iyaduu mitirkii intuu u qaato iyo cabirkii wax ku cabirayay uu leeyahay xaggaa taag xaggan isu qallooci sidaan dheh isgaabi isdheere uu maanta mar meel ka saaraya iyaduna waxay moodaysaa inuu si wacan marada ugu jarayo isaguna cabir kale ugu hoos jira laakiin dee waa laga yaabaa inay qaarkood dareensan yihiin inay qaarkood dareensanaynoo dee dadku wax xun iyo wax fiicanba waa leeyihi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya dadka walaa yadribna biarjulihinna dumarka liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحلو دي دمركم waxay ku xarragoonayeen qarsoona lugaha dhulka hal dhicina si waxyaabaha idin ku xiran xagga kubka iyo waxa shanqadooda aan loo maqlin hadii halka loo diiday shariicadu maxaad u malaynaysaa mid lugaha qaawinaysa ee cududaheedii qaawinaysa ee maxaan ku idhaahdaa jirkeedii in kala qaawinaysa soo kama sii darna waxyaabaha waxa khatarta waxa kamida in gabadhii intay cadar isku soo shubto iyadoo isa soo cadarisay ee suuqa soo aadayso nabigu nuux sallallahu alayhi wasallam وليخرجنا تافلات قبضه سوقها markay islan u leeyeen gabadhu banaanka suuqa u soo baxayso dalaan u soo baxda lama ogola tafilat bimaana ghayr mutatayibat iyagoon cadar sanayn oo isa soo cadrin asoo bixin rasuulku wuxuu kala soocay cadarka ragga iyo cadarka dumarka طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رجع عذر كيسو ومدك مركو نينكو صومر أورتيس ميل فقط كورينيسو لكن ميدب كيسو أنا كومو قني مريها دومريو هبلها عذر كودو ومدك ميدب كيس مرضى ماشي مريسا كمو قنيا لكن أدقون كيسة لأن نينك قبا أرصدو أسو دوالا موياني عد كلا أنا محانكو إلى هذا أسو أورينين تاسا النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحو تلمامي أيما امرأة أصابت بخورا قبر وليبو عذري أوسي اسكسوا بخامسة فلا تشهد معنا صلاة العشاء صلاة العشاء نلسو تكني النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلاة الليل سوقي يقول صبح كما سيدرنا سوقي لا آدم إمنك وحوي عذركي أيا الله مرسانيا وحال أركيسا قبرديو كئيب سنيسا ماشي دكانك لبا الله صعدة قعنتي بف إساقا سينيسا ومرادي كبو فينيسا متكالي كبو فينيسا ما أنتو دان طبعا عذر بمربع إتوس ليضا مربع إتوس وحال كان دكانك هيستوان نيسكا مسكينه مربع حبد بودي بيا يقولون إذا بدر بصعدانا وأنا كعذر صدين وأنا دنبابين دي مو كده لكن سكر عذرك ليسو تسكرا والله غفك الله تسكرا حيابها إنه براروتشينينو وحاكميد oo gabadha quruxda iyo labiskeeda soo galaya musliimada ahi marka ay dukaamada iyo meheradaha imanayso inay gabadhu aad isu ilaaliso oo ragga codka inaanay u jilcin oo hadallada macmacaan dadka qaar baa qalbiga ka buka oo shahwa baabi'isay oo haddii gabadhu la hadasho wuxuu moodayaa inay ka daba dhacday markaasuu iska soo halamsanaya ilaahay wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayatmaca alladii fii qalbihi marad marka hadlaysaan ragga hadalka ha u jilcinina haddaad doonayso shaambo walaalo aboowo macaanow shaambadani waa imisa maxaa intaasoo jaranjare ku geliya adiga shaambooga ma haysaa magacaa leha waa imisa muxuu ku odhanayaa marka isagina intuu ku fiiriy intuuna jawaabin hadduu da nin qalbiga shahwa baabiisaye soo dhowo abbaayo macaanay waa lagu hayaa intaasoo shaambaan haya kun magaco kala duwan buu sheegaya iyadii baa qoslaysa isagii baa loo qoslaya hawshii halkaasay martay ilaahay wuxuu leeyahay falaa takhdacna bilqowl hadalka ha u jilcinin dhulka ha u dhigina mufasiriinta qaar baa waxay yidhahdeen gabadhu codkeeda inay weynaysaaba fiican oo marada afka intay saarto markay ninka la hadlaysoo kale salaamu calaykum inay tirahdoo kale waxaa ma haysaa codka weynayso bacd almufasiriin في كتب التفاسير بيكتها الله إن عد كده وينيسو سيبو مارت تدي سيرا ورده قفن كلها الله وان إنك ورقب وس كذا مارت عد كده إني وينيسو مركا هذا القرآن وأن شلشلاعيه لبلبعيه وحا أن مارت لهين إني قبضوا كهرش أيها شريعة أمر يسا إلهي بكاغا ورمي يحو كليه فيطمع الذي في قلبه مرض ومركا ضمعوهم قرودو كي قلبك كبكي ومحا قلبك كهيا موضاها لغايا مايا شهوة قلبك بابيس شهوة قلبك بابيس marka de waa arin khatar ah hadii ninku dhalinyarayahay oo reer lahayna dareen baa isaga jiraba Soomaalidu doob dareen baa dilay dareen baa isaga jira oo de anteenadu waa u taaganta inuu marka qofku is ilaaliya la rabaa oo wax badan uu ka taxadaro si maaragtay uu in badan isu ilaaliyo waxyaabaha la yaab kale waxa kamid dhalinyarada wiilasha iyo gabdhuhuna wiilasha ka baydi maayaan wiilashuna gabdhaha ka baydi maayaan maan leedaano dariiqa maraya duhurkii masaaj ku sii socda ayaa kuwa wadadii isku gooyay gabdha mid ban chaach washtaa marka la hadlayo naga baydo washa
soconayna waa kanaayo saasaa loo eego waa la iska sheekaysanaya wallay ka tahayo waba lagu qoslaya markay soo dhaqaaqeen ayaa midi soo dheeraysay wariyay kii markii dhaweed ooyay waxaad ku ooyaysa wixiisu dhan oohin bay ka soo qaaday waxaad ku ooyaysa halkiiba ilaaq la iska galay iyo kala kaxeeyay noqotay wiilashu gabdhaha ka leexan maayaan oo ilbaxnimay moodayaan gabadhoo la isku dhufto gabadhuna ragga ka leexan mayso waxa intaba ka sii cajabsan labadan qole isku maqano midna mid aanu ka baydhayn baabuurtiina laga baydhi maayo hadda tira qofka wargaariga ka baydh uu kula yaabayaaba wuxuu ku arkayaa baabuurtoon laga baydhin baa ilbaxnimo loo arkaya taasi waxay keentay marka darawal xumada jirta iyo baawur ka baydhid la'aantu dhaawaca iyo shilku inuu batay keentay oo dadkii maaragtay ay keentay ansha xumada jirta oo bulshadu iska dawayso u baahan mareer baadinima keenaysa ma indha adeeg kala keenaya ma jahli baa keenaya wallahu a'lam saraawiisha xidhashadooda gabdhuhu inay saraawiisha xidhaan iyo garamada oo aan xijaabkii iyo waxba uga hoosayninoo ay suuqa ku dhex marto waa shay xaaraam ragga iyo xitaa walaaladeed iyo habla iyo dumar iyo la dhex joogta lama ogola laakiin ninkeeda inay isu geejiso dhibaato ma leh illa isagii waa ninkeediyo hubay isu yihiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna adna u labiso gabadha adnaha ku labisato marka dee ninku guriga joogo oo kale inuu isiraado reerkaaga isu qurxiyo oo ila Soomaalidu ma yaqaanaan inta badan ninku markuu guriga tago garan duluf iyo macawis duluf u xidhanaya waxa la guriga ma ka tagtid garan fiican inaad xidhatido macawis wacan xidhatido gabadhu isheeda qabanayso hadday adigu aad garan aad tuurtay xidhatid iyo macawis daldaloosha iyaduna de waxay ku xidhan shii daldaloolay ku xidhanaysaa dad marka waxaa tiin si u kala dahsoon haddana dantu ka dhaxaysaa tihiin laakiin waxaa guriga markaa tagtay garanka ugu fiican kaad ku soo dhidatay oo wada iska dhig mid kale la soo bax mid garba go'aho murqahaagu muuqanayaano maxaan ku raado jirkaagu muuqanayo macawis wacan xidho oo gabadha aad tusayso iyadoo ku soo xidhato waa asluubka sharciga ah ee aadaabta oo labadan qofba qofka kale baahidiisa inuu buuxiyaa la rabaa waxa sharciga ay wanaagsani umadu inay barato waa fiicanta ونinku xaaskiisa ku kalsoonaado haday u labisato oo u xaragooto ayaamkan inaanu kulaba guursan baa laga yaabaa ilaa markuu guriga yimaadaba hadduu masaajidka ka baxo ama shaqada ka soo baxo uu soo ordaya ilaa cadarkaagi iyo labiskaagi baa saaqay laakiin haddii kale maqaxyahaas waqtiga ku dhameynaya kooda habeenimo ku imanaya ama 12 ku soo dhaadhacaya adigoo aan afka ka oran soo dhaqso waa in dantu soo caydhisay fiidka u yimaada aqalka ninku sidaa awgeed waxa la rabaa marka in akhlaaqiyaadka iyo wax badan oo nidaamka kamida nolosha qoysku in la isla fahmo waa laga maarmaan hubay isu yihiin buu Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala